بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أروريا وناكسن وأنا ذكر سوق الله dadkuna marka ay diyaar garoobayaan kala had waa ku dhib haddana waad ka soo baxdeen soo dhaweyntii oo salaada hore guriyihii waa ka soo baxdeen oo waxa laga yaabaa xaafadii qaar in laga quraacan oo ilaa xalay shaqeynayeen aad iyo aad baan idinka mahadnaqaynaa maadlaqa kadib waxaan u soconay kaar qaadashada intii laga oran lahaana maxamuud baa yiri ninkii horeeyay aniga waxay haray kaliya halkan waxa fadhiya odayaashii qaranka Soomaaliland oo ah dadka tiirarka waaweyn ee Soomaaliland lagu dhisay ama wax ka dhisay kamida oo u soo baxay maantana miisaanka ay leedahay kaar qaadashada oo ah dal dhisid iyo hoggaanka dalka la dhisno halkaas oo u soo kacay baan doonayaa inaan iskiin baran mid waayo waqti aan ay wada hadaan ama aragtay ka gaari mayno markaan ka bilaabo halkaa waxa baa wixii gaawa Cabdullaahi Bakayle mujaahid salaama bidaar weyn leh halkaa waxa ku xiga Cabdi Qaawil oo malaaba cabdi lagu yaqaanay hadda u soo tafaxaytay kaar qaadashada iyo xisbiga waxa ku xiga Ambassador Ahmed Xasan Cigaal ambassadorkii Soomaaliland u joogay Shayne imikana ah odayaasha aqoonyahan iyo siyaasiyiinta dalkaba ah kana soo jeeda gobolka Daadmareed halkaa waxa ku xiga isagoo Ambassador Cawil oo ah ragii halganka Soomaaliland bilaabay 1961kii inqilaabkii Xasan Kaydee la soo dhiciyay ragii ku jiray maanta dhowrka qof ee ka noola wasiirka maaliyadda horena ah qoraaga weyn ee buugaagta caalamka akhriya Soomaaliland qora Ambassador Cawil ilaahay cimrigiisa caafimaadkiisa taariikhda Soomaaliland qoroway halkaa waxa fadhiya Cabdikariim Xaniif isaga idin sheegi maayo isaga wax cidoo sheegi maayo kulmiyay Cabdikariim Xaniif marun bay dawada bilaabeen intii soo maray way soo maray halkaa waxa jooga Suldaan Maxamed Xasan Barre suldaankii nabadda odayaashii ilaa bilowgii ilaa SN bilowgeedii aabihiisa oo suldaana qaranka wax ka dhisay oo hawsha halkeeda ka haya og buu soo socday dagaalkii og buu soo socday maalinta ku qaaday erga nabadeed buu ku shiiday Canada looga yeeray hawshii aabihiisu ka howdaa Suldaan Maxamed waa soo dhaweynayna waxa ku xiga Cabdulaziz Maxamed Samaale oo ninkii kulmiyay yaqaano waa wasiir maaliye hore waa ninkaan igula tartamay barashaxnimada ee gilgilay ee cirka ay qaaday ee anigu hawada maray xisbiga kulmiyay iga dhicin war iska daaw ka daaway waxay ka mid tahay siyaasadda kulmiye ee cid kale lahayn iyo xisbiga kale ee xisbiga kale ku burburaan ninkii inta galay leeyahay joog adigu u daa inuu dhaawaan u daayay waana tuukana waan ku qaaday waa la ordayaa waka maanta labadaas isku daray waan u daayay kulmiyahayga baan dhisaya kii soo baxaa waa kay kale oo ku raatay Mustafa Xuduro dad baan laga yaabay inay yiraahdaan maanta Mustafa goor mutay asaasaashii wadan weey ragii la bilaabay la maalgeliyo weey waa nin u socday qarannimada Soomaaliland markuu arkay fishankeeda wuxuu goostay inaan halka dad Soomaaliland ku jirin oo lagu daalay saasoo kulmiye ku yimid xaaji saarax maalintii kulmiye marayena wixii ka dhacay waa arkaysay waana kii dagaalka galay علي ورن عديني وحيرتي وزير كان واحد waxa noo sharafa oo kulmiya aanu barayna xisbiyada kale oo dadkiidan isu laayay xisbiga suturaan barayna waan u sheegaynaa inay siyaasad tahay wada jir iyo mabda aan ahayn xil iyo hebel ku tuur waxa isaga fadhiya waran cadde iyo faratoon oo labadii wasiir shalay soo wareejiyay oo isku mid ah oo xisbigiisa dhisaya oo xafiiskiisa la dhahay oo hawshii wada haya علي ورن عديني يا ابو ماتي waxa ku xiga wasiir dawladda caafimaadka galaal isagoo waa macruuf dareen galaal marka waa wada abwaan waa wada wadariin waa nin Ingiriis ku qoray haddana mikrofoonka dawladda la caawa gabayay reer galaal soo dawdayaga horaan dhaafaya waxa ku xiga waa ninka wasiirkii daaqiliga farato yaasiin
تيستر ولا قامت ملا ملا بروفيسور تهاي وقابيها كيف وحي لين براد وزير داخلية إلى تصل waxa ku xiga maxamuud xaashi waraa la garan macruuf oo naafaya halkan waxa ku jira wasiir qabiyo tire oo nin timo dheer oo timo xoog leh oo jilicsan waa wasiirka qorsheynta waa dagaalyahan qabo waa dagaalyahan berigii dawladaha hoose la soo saarayay xaq soor baa oo iska soo jeeday wuxuu aragay madaafiicda kulay lagu ridaayay qorigiisa inta nimanka dabinay ayuu cadowga ku ridayaa waxa ku xiga wasiirka hawlaha guud cali mareexaan nin dhalinyaro ah intii wasaaradda iyo baarlamaanka ku jiray bana wax qabadkiisa in badan daawateen ma sha Allah siyaasi dhalinyaro ah oo xilkiisa ka soo baxay waxa ku xiga محمد علي حرسي حليوان قولها وكيلها oo la magaca ay dhalinyaradu la jeclaatay Obama maxaa lagu bixiyay waa sheegayna waa taariikh weey Obama isaga oo dhalinyaro ah oo aad u yar 10 sano ka hor ayuu xildhibaan noqday markuu xildhibaan degdeg u noqday ayuu ku ortoshay iyo taay wada wallahi tan way yar tahay madaxweynenimada isku qaad wuu isku kaayay soo qaad cirka inta loo qaaday ayaa madax ruux u dhacay waxaan ku habalyeeyaa maalin quramo xaraaqin oo kulmiye waa lagu jilciyay koona walba oo ka garaacay dhulkaan dhigday isagoo disbil wanaagsan ma kale kulmiye iyo cid la dooray ku fashanahay mustaqbalka sugaya tabarkaas ka soo baxay waxa ku xiga mujaahid isaguna sida qabyo tira timo weyn leh oo aad timo dheer oo timo hogan leh oo magaciisa la yiraahdo Cali Gure oo ay dhalinyarada ka saaxiib yihiin Facebook marka waxa la yaabay waa oday weyn oo bidaar leh oo cirra leh haddana dhalinyaradu kula cartama Facebook daadeeyay taasoo dheer yahay wax rabtaa soo go'ay aad iyo aad baasay waxa la doonayaa inuu hogaaminta dalka la sameeyo la doorto waxa la doonayaa in aragtida dalka lagu hogaamiyo in mideyn lagu hogaamiyo in waaya aragnimo lagu hogaamiyo in wuxuu soo maray dad soo maray oo soo dhisay halku u socdo garanaya cayraankiisa qabtaan waxaan u soo bandhigaynaa xisbiyada tartamaya waxaan u sheegaynaa in halkan ay joogaan haldoorkii iyo waxgaradkii iyo siyaasiyiintii Soomaaliland oo midaysan sababta isku yimaadna aan wax kala ahayn xisbina lama dagaalamayno cidna gaar wareexayno Soomaaliland oo dhan baa kulmiye isugu timid waana maalintii dalka aayis laga talay ma baa tiraahdaa inanku aabihii maalin buuhiin uga baahay nin waliba aabihii maalin buuhiin uga baahay waa maalintu hooyadii doonayay inuu u guridayo Soomaaliland waxaan wadaa cidii aayaheeda u meeldeelahay wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wa barakaatuh